Yab, warar kale oo argagax leh ayaa ka soo baxaya kiiska Hashim dilkii uu u geystay gabadhii Deeqo ee shalay la xaqiijiyay inuu dilay. Haddaba xiriirka ka dhexeeyay iyo sidoo kale qaabka ay wax u dhaceen ayaa la soo ogaaday iyo codad kale oo Hashim iyo gabadha wixii dhex maray ah. Haddaba waxaan kula wadaagayaa arrimo xaqiijinaya Hashim in gabadhaasi uu muddo 5 maalin ah xoog ugu haysto guriga, qaabka uu u sharqoolay wixii ka dhexeeyay iyo in hadda ka hor dhowr mar gabadhaasi uu soo doonay loona diiday. Haddaba arrimahan xasaasiga ah ee dabagalka dheer lagu sameeyay ee ku saabsan kiiska iyo sidoo kale halka ay qaraabaha ka ahaayeen ayaan kula wadaagayaa iyo sidoo kale dayaca ka yimid dhinaca qoyska gabadha Allah u naxariiste. Haddaba xogta inta kula wadaagin muuqaalkan meel dheer gaarsiiyo oo like la dhac share gareey lana wadaag saaxiibadaada haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir gabadhaas iyo kuwii ka horeeyana u duceyn in Allah subhanahu wa ta'ala u naxariisto. Okay, sheekadu waxay mareysay in Hashim shalay gacanta maalmo ka hor la soo qabtay sidoo kalena la ogaaday in gabadhan Soomaaliyeed isagu gacantiisa ay ku maqan tahay. Haddaba waxaa la baaray waxa ka dhaxeeya ama xiriirka ka dhaxeeya Hashim iyo gabadha sidoo kale qaraabo halka ay ka yihiin iyo sida ay gabadhaasi ninkaasi ugu gacan gashay iyo dayaca soo gaaray gabadhaas oo ka soo gaaray qoyskeeda. Gabadha ehelkeeda waa la soo xiriiri jirtay, codad ayay u soo duubi jirtay, lacaga ayuu ku dul qaadan jiray, iyada lugaheeda uga tagtay, laakiin waxaas oo dhan siday u dhaceen ayaan rabaa inaan kula wadaago. Gabadha Hashim xiriirka ka dhaxeeyay way ogaad ninkan inuu wanted yahay oo ay boolisku si aad u raadinayaan, laakiin nin ay jecleed ayuu ahaa oo hadda ka hor 2 mar soo doona. 2 mar ayay u diideen cidiisa. Sababtana waxay tahay ayaan kuu sheegayaa Hashim waxa uu soo guursaday hore u soo guursaday gabadhan gabar ay ilmo adeer laxmiye yihiin waana ay kala tageen sababtoo ah iyo soo dil raba ayay ka baxsatay haddana dalka Mareykanka ayay ku nooshaa. Ehelada gabadha way yaqaaneen ama waa ogaayeen khatarta ninkan, laakiin gabadhooda ayaa laga reebi waayay oo iyada ayaa ninkan jecleed. Marar badan ayaa looga digay xitaa maalmaha ay aadaysay waa loo sheegay ninkaas khatar inuu yahay inaysan aadin, laakiin iyada ayaa cagaheeda ku doonatay. Waxa kaaga daran isaga ayaa wacay oo yiri iisoo adeeg, waxaan u baahanahay adeeg ayay u qaaday, waa u geysay maalin kadib soo laabatay haddana adeeg kale ayay u gaday, waana adeeg dambe kii uu ku dili lahaa. Okay, sidaas horta ayay ugu tagtay. Markii dambena guriga ayuu isaga haystay. Ehelkeeda markay la soo xiriireen codadka macnaha codad ay xoog u dhijir u duub cidda lacag inta laga u baahana dheh waa safra dheh meel heblan joogaa dheh inaan noolaanayo in kala moog wax ereyada noocaas oo kale ah si gabadhan loogu maleeyaba inay safartay oo ay dalka ka maqan tahay. Hagaag waxaa sidoo kale jirtay horta ninkan iyo gabadhan intee qaraabo ka yihiin. Hashim sida la sheegay ama xogta aan ku hayno Hashim ilmo kale oo hooyo ah ayaa jira oo gabadhan ay qaraabo yihiin. Qaraabo maahana waa ilmo adeer koobaad labaad. Marka ilmahaas Hashim hooyada ah ayay gabadhan ilmo adeer yihiin. Horta halkaas ayay iska leeyihiin. Hashimna aqoon fiican u lahaayeen wax ku saabsan oo ka qarsanaa haba yaraatee malaha. Midda kale Hashim ilmaha xitaa la dhashay qataate waa dad cid badan oo mataqaana gacantu ka soo horeyso oo dad badan hore u cuneen ama hore u dilay. Okay, marka gabadhan markii la yiri ninkan ka har ninkan waa halis badan yahay ha aadin hadda dad soo dilaa la leeyahay tiri maya aniga ninkan qatar ugu baa xitaa codad noocaasa ayaa la hayaa iyadoo gabar kale la hadlayso leedahay war ka joog iyadoo leedahay haduu qatar adiga kugu yahay ani Hashim nafsadii qatar kuma ahan waana jecel yahay mana itaabanayo. Okay, beer la xabsigaas ayuu gabadhaas horta ku helay kadibna waa kii qabtay ee dilay ee jarjaray kadibna dabka saaray ee karkariyay ee hilibkii meel allaale meel uu geeyay ilaa hadda aan la ogeyn. kadibna xilli hore subax hore inta qaaday xitaa wax kale ma sameey isma dhimin wuxuu dalbaday u baro dalbaday gurigu ugu yimid wuu ka qaaday ma aqoonsanin tartiib baciyo laangaad ku soo tuuray kadibna baag gurigu ku soo celiyay qolkiisa isaga xarooday. Ninkii hawshaas kula jiray ama guriga maalinta wax dhacayo dhan guriga kula jiray ilaa ay hadda gacan lagu maayo. Waan idin sheegay eheladiisuna waxay aaminsan yihiin ninkaas inuu Hashim dilay. Reportka ay geeyeen booliska waa Hashim in wiilkooda uu dilay, laakiin meel uu ku soo dilay aan la ogeyn oo guriga banaankiisa meel uu ku soo dilay. Hashim guri badan oo yeelan kara inuu ninkaas dilay iyo inuu maqan yahay cid ilaa hadda noo xaqiijisay haba yaraatee maanan arkin anaga ahaanteena. Okay, ninkaas maqan marka laga soo tago horta Hashim iyo mataqaana xiriir noocaas ka dhaxeeya. Waxyaabaha marka aan la yaabo ayaa ah
waxaa la ii sheegay gabadhan horta Kenya wax ku baratay, aqoon-yahanada ahayd, qof dhakhtarada oo caafimaad baratay ahayd. waxaa la yiri marka inta badan Kiswahili ku hadli jirtay iyo luqadda Englishka. ehelkeeda markay la hadlayna labadaas luqadood bay ku hadli jirtay. marka shaki weyn dhaca marka waxay ahayd fariin ayaa loo soo diray maalinta gabadhu dhimatay. marka fariin ayaa loogu soo diray gabadha walaalkeed, sababtoo cidoo dhan ayuu yaqaanay. message ahaan waxaa loogu soo diray aniga inaan noolaan doono, codkii aad dhageysatay xalay aan idinla wadaago kale, inaan noolaan doono iyo in kale anigu ma ogi amase ma aqaano. marka hal cafiye camal ayuu usoo qoray cidda, si cidda ay ugu maleeyaan in gabadhaasi tahriibtay oo looga harabo aan bal raadinba macnaha. markaas ayaa cidda waagu ku bariyey oo shakiga ugu weynaa uu ka dhashay, iyagoo aaminay in markaasi gabadhi wax ka qaldan yihiin oo lambarkan fariinta cidda kasoo dira aysan ayada ahayn, maadaama aysan luqadda Soomaaliga soo qori jirin amaba kusoo hadli jirinba. kadib gabadha adeerkeed ama xubin kamid ah ehelkeeda ayaa wacay, ayaa la yidhi lambarkii uu ka qabtay. markii gabadha la weydiina wuxuu yidhi gabadhaasi way tahriibtay amase way maqan tahay. haddaba markii intaas dhacday ehelka waxaa la rabay si kastoo ay ku baadigoobi karaan in lambarka la taraagareeyo iyo waxyaaba noocaasa mataqaanaa ciddi ma sameynin. midda kale ninkan WhatsApp-keeda ayuuba si caadi ah u isticmaali jiray oo mataqaanaa uu dadka kala hadli jiray, dadka ka wacan jiray ehelkiisa wixiisa WhatsApp-ka gabadhaas oo kala hadli jiray. waana sababta ay ugu adkaatay booliska inay nambaradiisa helaan ama ay taraagareeyaan. marka adiga calaa kulli xaal gabadhaas horta ninkaas wuu dilay, waxaana ilaahay sababay in ayada darteed loo soo qabto. sababtuna waxay tahay markii ayada uu dilay receiptkii meesha Quickmart baalkii supermarketka ka soo adeegatay ayaa bacda ku jiray alaabta bisuu ka bixiyay, hilibkeedii iyo wixii ku riday uu ku qaaday. cadayntaasaa fududeysay in Haashim lagu soo qabto. sababta loogu soo qabtana wax kale ma ahayn, markii boolisku ay raaceen receiptka tageen meesha counterka ay dhaheen saacadan daqiiqadan qofka meesha ka gaatay kaamirada loogu aadiyay ee gabadhan arkeen ay tix raaceen, kaamira u dhiibtay. kadib waxay tagtay dabaqaas apartmentiga iyo qolkay ka gashay ayaa la fiiriyey. boolisku inay soo baxday in kale ayagoo sugayaan waxayba arkeenba kaamirada waxay soo qabatay ninkii Haashim ayaa qolka marna galaa marna ka soo baxay, marna asagoo gabadha la socday xitaa ka soo baxay marna galaa. waa ninkii ay raadinayeen ee gabdhaha saddexda ah la tuunsanaa. marka waxayba ogaadeenba in gabadhan ninkanba uu dilay. ninkana sidii lagu soo qabtay, baaristu waa socotay, isagoo mataqaanaa bacwado oo soo baxaya ayaana mataqaanaa sidaas lagu helay. waana cadeymaha lagu hayo. codadkiisana waa la hayaa, isaga iyo gabadha codadkii wada hadli jireen la hayaa. gabadhaas iyo eheladeeda codadkii wada hadli jireen, codadka uu ku qasbay inay soo duubto intii mataqaanaa ay baarista ku hayso, waxaasoo dhanaa la hayaa. marka kiiskan wejiye kaloo yeesho, weliba hadda xogo halis badan ay soo gaaraan. muuqaalka dambe aan kugula wadaagi doonaa. fadlan muuqaalkan sheer garee lana wadaag saaxiibadaada. waa mahadsantahay.